كينا لا جيران لا جيرنا كينا لا جيران كجيرنا كينا لا جيران لا جيرنا كينا لا جيران كجيرنا شوابتي لواتا جالي الحداد وحمق ليسي وارنا وهذا لما جرى وبدي كجرى تاسوا لا جيفي انا بنان لا جوجي انا بنان war Soomaaliya isla jirto goorma ugu dambeysay imaaraadkii qadar loo kala baxay maya Ethiopia iyo Kenya u kala baxna wara Abi Ahmed iyo ummadda iska horkeenina taageerayaal u nahay war sanadku Ismaaciil Umar Geelo qad kama jar ma war furiya laga bedeshi war shirkii Mareykanka ayuuba ka hadlay waxaan nahay buu yiri hiil walaal war waa jugjuga meesha la joog war Soomaaliya horta maxaa galeerka ku dira war aqoonsiga u diidiyay war ma waa daalin carruurtu laga laayaniyo war waa waalantiina ummad kasta madaxdeeda hogaamisa meesha taageeraan inay jiraan war hadaad maqli jirteen mid bashaar haqaatiyo hub iyo shaabad gooniye shaydaanba shaydaanka kale wuu togayay shaki male inay laba shabaab wada shaqeeyaan cadayna loo helay ma Abu Ubaydi al rasiidka ma aragtay war ma yee muuqaal wele war meedidkii maalin dhawaaytay Elsaliini laga dhamaaya la hantiriya kaale war awaa ardu ugu yimid warka ninka ka dhageysta ninkii madax jabiska gobolka Banaadir u qaabilsanaa xarakada oo la dhigi jiray Ciise Tarabuun oo jeeru dawladda u soo gacan galay labadiibana waa ka baxsaday markii hore Abdallah Siida ayaa leeyahay kadibna wasiirka amniga shirjay qabto wuxuu yiri Ciise Tarabuun waa qabanay bakaaraan ka soo qabanay gacanta dawladdu ku jira haddana Kenya laga sheegay markii hore hadii Abdallah Siidaay mara hadda Ismaan Siidaay East Africa ka shaqeynaya war maya Ubayd ayaa daayay horta idinku xageed isku barataan Ciise Tarabuun warniga magaciisa waxa la yiraahdaa Abdulwaahid Khaliif Ahmed macnaheedu xarakadana waa Ciise Tarabuun waa qalama warniga qoladiisa waxa la yiraahdaa al-majhuuliyya warninkii soo gacan galaaba haddii ka baxsanayo sidee ku badbaadaysaa qoodhina marka hore horta noo soo diray laakiin mar labaad hadda Siidaaysan la yaabana war annagu godan bal idin soo dirnay balaayada kale idinka wata warnimada wax niibaad kismaayo waa laga qaadaa la yiri markii hore baa inuu nibnaaytay war maalmo kor hay'ad durista waxay tiri waxaan xanabnay ma jiraan shayna wasiirku xeegan raafinta wuxuu yiri ina qabataynta kismaayo waan ka qaadnay diyaaradda rabta waadi kartaa marka waxaan la yaabanahay labada xanibaad matii hore runaheed masdan baa saxa maano war ma hayside waxa la yiri gudoomiye garbaare ayaa diyaaradii laga reebay war dawladdu waa tii shaqaysatay shaqada tii xunna inkirta war hadii Ismaaciil fasaxay على مسارك أحمد مدوبة وقرمي وعلى مسارك أحمد مدوبة وطريق أحمد مدوبة دولة عقوستي والدولة وحيد الديارة هدو سياسي نرعرب أفر إلى تزع قارص أو شيء سيانا ولارنا ورفيسل على ورابة أياك قيب كلية على مسارك أحمد مدوبة حقو مريات طبعا ورفيسل على ورابة هدو كقيب كلية على مسارك أحمد مدوبة وأمرك اللي انت شيء جرتي حبس يجرع وقعبلها ورأيك أولك تبدنا لا هذه عبد الرحمن عرق قدومي حسي قوتنا وحويري مصبح وتجي يا لك لا تجين ورحس حاجة على عصا وحويري تلافك مدحوين مصبحي بروحه ومصدعه حقه هي قبيلة يا عرب سي ودعه وروح الناس شايسة نكي مركو دلنا هالك بلايست مركودومية حزبي وكلمية وعلى قاعدين محمود حاشيه محمود حاشي وهو الربع يوم مصبح نصميه والكلو يبت هيدا بحيد انجليه ور محمود حاشي ما حد كشيغيسان كدومية نبدي انا البوافات ياسين والله انا اللي يلي فرح كقاطو ور ما انت دبا قرقات كادو فرح نفاد وقات كانيا ورنمي واني ورسين هاي reer galmudug fayuuski yar laan katabiya wala ka dhamaadiya ka aale gayli bilaaween may leeyina kasaase anaga hilabaanadii hore baanu nahay badbaadinta galmudug baanu nahay faragelinta galmudug lagu wada wallahi aan yeelayno on billahi aan yeelayno qasbana lagu wada ilma adeeryada qaskana laga daayo waraad kasta waxa ka sarabta badbaada qaranka la baxda maan daayo xildhibaanadaas qalqaylinayo buulnimada ku raagtay waxa la yiri cudurka ka gala fardaha hadii laga gubo dabeer dawlad lama gaaraye dawadiina ayaa meel aan jirin ayaa ka raadinaysan qoodhino اعتراف ka galay afkooy hadii aad ka goobto geli dawlad lama gaarayo marka adiga laftigaada اعتراف ka meel uu ka jirin ayaad tiraysaa warado naga tag anaga gorilaha soo laga galay nin hali ka maqan tahay haan gorofo gacanta geliya la yiri horta gudoomiye gobolka Banaadir yaa arkay meel jaani ciribigay war gudoomiyaha markuu yar dhagaxan qaada dhagaxi laftiisa loo qoray nabadii nolol marka ma nabadii nolol loo qaadi karaa maan leesto sida baarlamaanka loo aamusiyay miya asigana loo aamusiyay warnimayo filishkan afariisa ka baxa war markii uu horeyso shirka Afrika ka qayb galay 92 madaxweyne afweerkiga Eritrea ayuu canaanta madaxdii 40 sano xuquuqtana u dagaalamayna halkaan aad ku shiraysan hal maalin dadkaan maxay rabaan maadna oran buu yiri
bini aadanna ma haydin nin baa la hadlay madaxda afrika ka mid ah wuxuu yidhi isdeji biyahabu oo eeyu markaad cabto annagoo kalaad noqon doontaaye marka hadda finish gareen madaalishi nabadeena loo wax ka cabay dalkaygu dushaadu waa barwaaqe dalkaygu dabeesha waa udgoonte dalkaygu dalkaygu siyaasigaagu waa been badan yahe dalkaygu daruuf adagaan hayse dalkaygu somalilan itiraafka ku daahe dalkaygu ciidankaadi waa daale waryaa xildhibaan inuu beec mushtaga maaha war waxaa heesmayna hanoo weyniniyo war heesii waa ku cayaartay iimaanka waryaa milatadiga maxaa shabaab loogu dhulku taabado waryaa dhibkaan iska daayay war gees maxaa dhisnaa tariska baa war laga tago waryaa ilaahay ka baqa ilaahay waryaa dawladnimada laga run sheego